taliyaha guud ee ciidanka Jandarmeriga Colonel Zakaria Xasan Aadan ayaa booqasho ugu baxay magaalada Porto dalka Faransiiska oo uga qayb galay cadadkii saddexaad ee howlgalka gaarka ee ciidamada hal abuurka ee Force Innovation booqashadan shaqo ahayd ee ugu baxay dalka Faransiiska 28 ilaa 31 bishii Maarso intii u dhaxaysay taliyaha ayaa kulamo la yeeshay mas'uuliyiinta kala duwan ee militariga oo ay ka wada xaajoodeen xoojinta iyo hor u dhigga xiriirka laba geesoodka taliyaha guud ee ciidanka Jandarmeriga Colonel Zakaria Xasan Aadan ayaa dhankiisa uga warbixiyay howlaha gaarka ee bandhiga wanaagsan ay qabtaan ciidamada Jandarmeriga Djibouti ugu horeyn waxa uu taliyaha ciidamada Jandarmeriga oo kulamo u la yeeshay agaasimaha qaabilsan iskaashiga amniga iyo gaashaandhigga General Corps de l'Armée Didier Brusso kulankaasi waxaa lagu soo qaaday horowdhiga iskaashiga hadda iyo waliba dadaalada mustaqbalka labada dal sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka Jandarmeriga Colonel Zakaria Xasan Aadan ayaa kulan la yeeshay agaasimaha guud ee ciidamada Jandarmeriga dalka Faransiiska General de l'Armée Richard Luzeri labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen dhinacyada ay wadaagaan labada ciidan ee Jandarmeriga Djibouti iyo Jandarmeriga wadanka Faransiiska iyo in la sameeyo ciidamo takhasus ah oo u fidiya ciidamada Jandarmeriga Djibouti tababar lagu horumarinayo khibradooda iyo waliba xirfadooda ciidan agaasimaha guud ee ciidanka Jandarmeriga dalka Faransiiska ayaa ballan qaaday inay wax walba hirgelin doonaan oo taageerada ciidamada Jandarmeriga Djibouti oo hore loogu dhigayo cadaaladooda ugu dambeyn taliyaha guud ee ciidanka Jandarmeriga Colonel Zakaria Xasan Aadan ayaa kulan la yeeshay agaasima ku-xigeenka caalamiga ee iskaashiga wasaaradda arrimaha gudaha waxaana diiradda lagu saaray waxtarka iyo waliba sidii loogu fidin lahaa shaqo iyo tababaro ciidamada Djibouti ee Jandarmeriga iyo sidii loo casriyeyn lahaa qalabka farsamo ee baaritaanada kala duwan ee hadda haystaan